dhakhtarku wuxuu focus ka saaraa maxay tahay clinically qofka ama xanuun ahaan xanuunkan qofka ku dhacay bakteeriyada keentay iyo managementkooda sidee xanuunkan loo maareynaya si qofkan uga kabado uga bogsado oo xanuunka qofka uga bogsado pharmacist-na waxa la yiraahdaa expert of drug qofkii dawada ku takhasusay isagu wuxuu garanayaa dawadu maxay tahay xanuunkay daweysaa qaabkay u samaysan tahay environment ama bay'ad noocaya la dhigi karaa way ku badbaadi kartaa dawada nooli inteebay ku dhimataa dawada sidee loo supply gareeyaa ayda looga qaado area loo gaarsiiyaa area kale tusaale ahaan oo kale warshadii soo saaraysa dawada iyo wadankii la geynayay wadankii ilaa warehouse-ka ama wholesalerkii ilaa cisbitaalkii xataa ilaa inta last consumption-ka u dambeeya qofka beeshika ay dawadu gaarayso sidee buu qofku dawada uu guriga u gaarsiinayay maxaa yeelay dawooyinku waxay lagu ilaaliyaa environment kala duwan qaar refrigerators talaagada loogu talagalay oo waxayna xamilayeen room temperature-ka caadiga qaarna waxaa la iska dhigi karaa room temperature-ka caadiga waa la iska dhigi karaa qaarkood iyaga freezing baa lagu sameeyaa sida vaccines-ka tallaalada kale